بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدنيال يمروين مرتشرف تكل دوان دليلنا هوينكا هوغانكا دقنكا قويهانكا مسؤوليين تكلا قرنكا حفلة عاوة كسو قيب قلي دمانتين waxaan idinku mahadnaqaynaa sida sharafta leh ee ay u soo ajiibteen martiqaadka oo idiin fidiyey ururka Haldoor oo ah urur dhalinyaro iyo aqoon-yahan hablo iyo wiilal iskugu jira ay aasaaseen si ay wax uga qabtaan baahiyaha asaasiga ah ee bulshada ku nool gudaha dalka. waxaana caawa xafladeennan si gaar ah ay u khusaysaa daahfurka dugsiga mashruuca dugsiga farsamada gacanta ee laga hirgelinayo degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa. haddaba iyadoo xafladeenu ay inoo furmi doonto khudbado kala duwan iyo hadallo kala duwanna halkan ay ka soo jeedin doonaan xubno mas'uuliyiin qurba joog iyo marti sharaftaba ka mid ah, waxa aan ugu horreysiin doonaa in aynu ku furanno xafladda ayadaha qur-aanka kariimka ah. waxaana inoo akrinayaa Cabdinuur Maxamed Carab. الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله العظيم. أديات بوما هي Cabdinuur Maxamed Carab oo ayadaha quraanka ay noogu furay shirkan. haddaba si aynu sii qaadano shirkeena kelmadda soo dhaweynta iyo furitaanka shirka si uu xogo dheeraad ah inooga siiyo waxa uu daaran yahay shirkani, waxaan u yeedhayaa imikana agaasimaha guud ee ururka Haldoor Deeq Ismaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. gudahaan ilaahay baa maxad iskale subxaanahu wa tacaala. marlabaadka waxaan u mahadnaqayaa mas-uuliyiinta madaxda la soo ajiibay baaqaygii aan ugu dirnay inay nagala soo qayb galaan xafladda ama soo dhaweynta qurba joogta iyo furitaanka mashruuca dhismaha iskuulka Maxamed Mooge oo ururka Haldoor uu ka furinayo dhawaan insha Allah. haddii aan ku horeeyo marka hore ururka Haldoor muxuu yahay, muxuu qabtaa, muxuu soo taagan yahay. ururka Haldoor waa urur dhalinyaro, waa urur mutadawiciin ah, waa urur samafal oo u istaagay horumarka dalkooda iyo dadkooda iyo wax u qabadka bulshada tabaalaysan iyo horumarinta waxbarashada. ururka Haldoor visionkiisa ama hawlgalka guud ee ururku uu u taagan yahay waxa weeye inuu arko ama uu xaqiijiyo bulshada reer Somaliland oo gaadhay filaanshiyo xag waxbarasho, xag caafimaad iyo xag deegaanba. nooca ururkani waa urur aan macaash doon ahayn, waa urur aan dawli ahayn, waa urur ka madax bannaan siyaasadda, waa urur aan dhanna u janjeerin. sidoo kale ururka Haldoor waxa uu qabtaa ama uu ka shaqeeyaa horumarinta iyo wax u qabadka bulshada. ururka Haldoor wuxuu doonayaa inuu fuliyo mashruuc ay ku kacayso lacagdan 500,000 oo dollar. ku darso 500,000 dollar hay-adna bixin mayso, shirkadna bixin mayso, dawladna bixin mayso. waxaanu ka bixinaynaa jeebka iyo dhalinyarada jeebkooda $1 iyo $2 iyo $3 ay ku jirtaa oo ay isku geegeeyeen oo ay doonayaan inay wax ugu qabtaan dalkooda iyo dalkoodaba. farsamada gacantu sideen wada ognahay waxay muhiim u tahay nolosha aadamaha, waxay muhiim u tahay dhammaan bulshaweynta. waa waxa uu kaliya tahay ugu fudud ee qofku
si fudud shaqo uu ugu heli karo uu kaga maarmi karo in uu cid bariyo ama uu cid gacanta u taagto inaad qof kalluun siiso waxa kaaga qiimo badan inaad barto sidii uu ula soo bixi lahaa mashruucan fayskiisa hore maadaama lacagta ku baxaysa ay aad u badan yihiin mashruucan aad arkaysaan sawirkiisa inuu aad u baaxad weyn yahay dhulka uu ku fadhiyaana uu yahay 2 block mashruucani muddo dheerna uu soconayo waxaanu u qaybinay inaanu 3 fays aanu ka dhigno marka hore aanu kusii bilowna qayb marka dambana aanu ku xigsiina qayb alxamdulilah iminka hadda waxaan gacanta ku haynaa fayskii hore oo ah $50,000 oo aan hadda gacanta ku hayno aadna aanu ugaga mahadnaqayno xubnaha UK oo halkan la jooga iyagoo UK iyo USA bay gacan weyn ay ka geysan doonaan oo ay gacan weyn ka geysan doonaan mashruuca qaybtiisa hore $50,000 ani hadda iminka gacanta aan ugu hayno waan u mahadnaqayaa dhammaan cidda soo ajiibtay kulankayga ka soo qayb gashay waxaan baaq u dirayaa waxaan fariin halkan uga dirayaa dhammaan dowladdu waa stakeholderka ugu weyn ee mashruucan inay gacanta ugu weyn ka geysato haddii ay tahay qalabayntiisa haddii ay tahay dhismaha iyo haddii ay tahay wax kasta oo ururka haldoor uu uga baahdo waxaa kaloo iyana baaq aan u dirayaa hay-adaha ama shirkadaha ama ururada ka shaqeeya arrimaha waxbarashada gaar ahaan waxbarashada ku taxalluqda farsamada gacanta waxa la vocational skills training centerka sidoo kale waxaan iyana baaq u dirayaa shacabka ganacsatada in laga qayb qaato mashruucan oo ah oo faa'iido weyn u leh bulshada reer Somaliland oo aan cid gaar ah ka faa'iideysanaynin dhammaan bulshooyinka Somaliland oo dhan u furan oo ka faa'iideysanayso iskuulkan waxa lagu baran doonaa insha Allah marka aanu dhamaystirno farsamada ay ka mid ka yihiin lightka wastaadida biyagelinta dabgelinta computerka farsamada computerka dawaarka waxyaabo aad u fara badan marka waxaan ku celinayaa in ay dowladda wasaaradda waxbarashaduna way la jirtaa alxamdulillah wasiir ku-xigeenkii baa la fadhiyay aad buu ugu mahadsanyahay waqtigiisa qaaliga uu soo siiyey in ay gacan weyn hawsha ay ka geysato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad iyo aad buu mahadsan yahay agaasimaha guud ee ururka haldoor khudbadaheennii way noo sii socdaa waxa aan imika noo yeedhayaa malaha ragun baa isku xigay waxoogay xagga hablaha ama haweenkana aan eegno sahra xasan oo u hadlaysa qurba joogga haldoor gaar ahaan Yurub bismillaahi raxmaani raxiim waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafka halkan isugu timid iyo dhammaan dhalinyarada haldoor aad baan idin wada salaamayaa waxaan kaloo salaamayaa ummadda Somaliland oo dhan haddaan nahay qurba joogga kulli salaanta waa nagu waajib inaanu cid kasta halkan ka salaano maanta waxaan halkan isu soo taagay caawa inaan ka hadlo ururka haldoor iyo waxqabadkiisa uu doonayo inuu qabto haldoor waa urur active ah dhalinyaro isu tagtay doonaysa inay aqoonta dadka yaryar ee soo koraya meel fiican gaarsiiyaan doonaya inay horumar sameeyaan marka waxaan halkan dhammaan uga soo jeedinayaa ummadda Somaliland meel kastoo joogaan qurba joogga dawladda ganacsatada cid kasta oo Somaliland inay waxaan soo jeedinaynaa inay taageeraan ururka haldoor anigu waxaan ka mid ahaa dadkii u ololeynayay inay ururkan haldoor sameeyaan iskuulkan waxaan u dooranay farsamada gacanta waa iskuul waa wax loo baahan yahay farsamada gacanta waxaan u malaynayaa Somaliland oo dhan meel kastoo adduunka ay ka joogaan way u baahan yihiin farsamada gacanta because ma lihin iskuul farsamo gacmeed berigii hore waxaynu lahaan jirnay iskuulka farsamada gacanta ee hore ee jirtay laakiin maanta amaan arag meel la leeyahay iskuul farsamo gacmeed baa jira marka waxaan u dooranay iskuulkan inuu yahay waxa ugu importantsan ee qof bini'aadmi u qaban karo nolosha asaasiga ah ka mid ah haddaan qofku musbaarkiisa isagu meel ku samaysan karay waxba ma qabsan karaya marka imika anagu waxaan diyaar u nahay inaanu iskuulka bilowno wax kasta oo ay koosgaraynaysan inaanu iskuulkaas wax ka qabano ummadda Somaliland iyo cid kasta oo danaynaysa inay dadkooda wax u qabtaan waxaan rajaynaynaa inay ka qayb galaan farriisinada aan u qabanayno
meel kasta anigu waxaan ka wakiilahay qaaradda Yurub iyo North America, Australia, Europe oo dhan iyo America iyo Australia meel kasta oo ay dadku joogaan waxaan rajaynaynaa inay isku taxallijiyaan inaynu iskuulka cagaha isugu taajino haddii aynu iskuulkaa samayno waxaan u malaynaya in wax kasta oo kasta aynu qaban karno way fiicantahay Somaliland wax walba way haysataa jaamacadii baa laga furay meel wax kasta ay way qabsan kareen laakiin ma haystaan iskuul farsamo gacmeed farsamada gacantuna waa waxa ugu wanaagsan dadku isku wada aqoon ma dad baa farsamada gacanta ku wanaagsan haddii aanay maanta dadkaasi haysan meel ay wax ku qabsadaan ma waxay noqonayaan in darbiyada dadka iska taagan waynu biisi garan karnaa carruurta yaryar ee gidaarada taagan ee meelaha dadka ka shiidaysa ee waxay qabtaan garan waayay maanta dawladda Somaliland iyo cid kasta oo danaynaysa waxaan leenahay iskuulka ha loo dadaalo ha loo kaco waxa loo qabto maanta waxaanu fundraising ugu horeeyay ku sameynay London waxaan ku sameynay lacag fiican meelaha kale Yurubna waa laga sameeyay 50,000 kii ugu horeeyay baan ururinay muddo yar oo kooban marka waxaan iminka aad ugu rajo weynahay waliba wasaaradda tacliinta inay xil gaar iska saarto because iyaday mas'uulkeedii tahay oo mas'uuliyadaas dul saaran tahay maanta marka aad baad mahadsantiin aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa dadka qurba jooga ah ee sida wanaagsan noola shaqeeyay ee noo dadaalay ee waqtigoodii iyo timekoodii iyo lacagtoodiiba na siiyay aad baan soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa inaan halkan ku sameyno fundraisingkii ugu ballaadhnaa intaanaan ka tegin loo qabto iskuulka marka waxaan jecelnahay dadku inay ka soo qayb galaan dawladda cid kasta inay ka soo qayb gasho because waxaasi maaha wax un aynu iska sameynayno waa wax aynu u baahannahay maanta marka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad bay umahadsan tahay Sahray runtii si weyn bay uga hadashay aad baan u rajaynaynaa in insha Allah iyadoodaas wanaagsan Ilaahay u rumeeyo aad baan u maartay waa weynahay in dadkoo dhamina ay saas u dareemi doonaan kana qayb geli doonaan howlahaas samafalka ah ee horumarinta weli waxaan ku jirnaa qaybihii jaaliyadaha ee imankana waxaan u yeedhayaa Cabdiwahaab Cumar Xaaji Daahir oo isaguna North America u hadli doona السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامت هذا كتبوا أورك هالدور أورهم بيقول السيء وتوح كلامه هو ودنجود ويان تدخل أورك كان هذا الشيء هو جامين إياه أما يجوا وقت جود قلني أنا وتدخل دلني يرادا يولي بالتمر خاصة تروح عن همبليين يا تمر قربها تشوجا ورنتي تمر aad uga dadaalay ururkan iyo ururo kale oo sanadada farsamada gacanta waa muhiim inay dadku farsamo gacmeed iskuul farsamo gacmeed yeeshaan waxaan idin leeyahay farsamada gacanta waa muhiim waxa weeyaan aan yar idin sheekeeyay anigu markaan yaraa horta iskuulka ma jeclayn waxaan jeclaan jiray weligay in geerash liigeeyo ya dabeetana sidaantii u socotay ayaa waxa dhacday meesha la yiraahdo Sooyaal ayaan anigu galay farsamada gacanta Sooyaal markaan ka soo baxayna geerashkan ka shaqeyn jiro konta ku baqaan jiray habeenkii anoo ina yar markaan qurbaha galayna 5 sanadood baan ku jiray school board oo farsamo gacmeeda markaan iskuulkii ka soo baxayna dubban baan sitay intuu Ilaahay yaa qorayba marka waxaan uga jeedaa farsamada gacanta farsamada markuu qofku aqoon kale barto waxaad u baahanaysaa oday ku shaqo geeya qof kale ku shaqo geeya farsamada gacanta cidna uma baahnida dubahaagu baad u baahantay yeena subax walba kala hadoo shaqo diyaar waxa ugu badan maanta wadankeena yaalaan marka shaqo ahaan la eego waa farsamo gacmeed dadka maanta wadankeena kala wada ee wax walba qabanaya waa qof farsamo yaqaan oo weligaa iyo allaha meel fadhiyo bila lacaga tabiist innagana waxbarashadeedii markaad eegtay imka wadan ahaan khalad baynu ka fahanno dadkii computer science iyo waxyaabo badan oo loo baahnay oo wadankii shaqo laga helaynin ayay dadkii baranayaan marka dadka waxa waajiba oo dal ahaan iyo dawlad ahaan baynu ku waajiba inay dadkeena yeeshaan meel farsamo gacmeed
oynu najaarin soo saarno oynu dad qasabadaha yaqaano balamina soo saarno oynu dad alxankaa soo saarno dad gaadiidka ka shaqeeya soo saarno si ay dhalinyaradu u shaqo tagto maanta dhalinyaradeedi siday u dhan yihiin jaamacaday kasoo wada baxayaan oo Facebook bay ku wada jiraan oo meel horan bay fadhiyaan ma shaqo tagi karaan oo wax farsamo gacmeed ay ku shaqo tagaan ma jirto marka horta dawlad ahaan waa tan dadkiina ay tahriibayaan ee dhalinyaradii badaha ku dhimanaysay dawlad ahaan horta waajib baa ka saaran dawladdeena inaynu helno iskuul weyn oo farsamo gacmeed ah iskuulkaasoo dad inoo soo saara shaqaysto oo farsamadii gacanta ku shaqaysta shaqooyinka imika innaga waddankeena shaqooyinka aada la yaabayso waxyaabahan hargeysa ku jecel waxaa ka mid ah rayslahan ka dhargaano markaa hargeysa yimaado qurbahana raysluhu waa ninka ugu lacagta badan leh waayo waa farsamo gacmeed $20 buu kugu xiirayaa waa inaad ballan qabsato wuxuu ku odhaya maanta kuma xiiri karee beritoona iyo sidii dhakhtarku maad ku daba daalaysaa rayslihi waayo waa farsamo gacmeed weeyaan waa farsamo gacmeed markaa horta taasi waa taa waxaan si gaara ugu mahadnaqayaa hablaha qurba joogga iyo inamada si gaarana waxaan ugu mahadnaqayaa dadka halkan jooga ee ururka ka mid ah waayo ururkan haddaanu dad halkan jooga oo hogaamiye lahaan lahayn waxba may socdeen markaa si gaara waxaan ugu mahadnaqayaa dadka waddanka jooga waxaa kaloo aada ugu mahadnaqayaa dadka madaxda ah ama madax dhaqameedka ah ee iyaguna magaranaysaay mar kastoo nidhaano noo yimaada inay soo waajibaan iyagana ayaan ugu mahadnaqaya si gaara TV-gan kolley dawladdu way daawan doontaa insha Allah dawladda waanu jecelnahay waa dawladdeedii fadlan dawladda waxaan ku codsanayaa inay iskuulka wax nagala qabato inay arrimaha biyaha ee dadka haraadka uu dilay in dawladduna ay sidii hargeysa ay biyo u heli lahayd ama dadka kale haraadayba ayaan dawladda ka codsanaa annaga oo baryana weliba dawladda oo dawladdeedii tahay oo jecelnahay marka intaasaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waad salaamantii dhammaantiin waxaa kaloon halkan cudurdaar uga sameynayaa baashaaw faarax oo ah guddoomiyaha maxamed mooge oo isaguna caawa ahayd inuu nagala soo qayb galo oo isagana ay xanuunsatay hooyadii markaa fadlan isagana u duceeya inuu ilaahay hooyadii caafimaad siiyo guddoomiyaha degmada maxamed mooge aad baad mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu imanka cabdikariim axmed mooge wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta qarankaan u yeedhayaa inuu isna kelmada naga idhaahdo marka ugu horeysa wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada aad iyo aad baan u salaamayaa martida sharafta leh ee kasoo qayb gasha xafladda iyo xubnaha halduur gudaha iyo dibadda labadaba aad iyo aad baan idin salaamayaa runtii waa farxad waxa weeye mada la isugu yimaado tii ugu qiimaha badnayd waayo waa meel la leeyahay waxbaa la qabanayaa somaliland imanka hadalkaaba iska badan oo waxa la qabtaa waaba iska yaryahay marka meel la leeyahay waxbaa la qabanayaa in la isugu yimaado meel ka qiimo badani ma jirto xubnaha haldoorna horena waanu aragnay dadaalkoodii waxay qabteen horena waan uga mahad celinay imankana aan afka xukuumadda ku hadlaya waan ka mahad celinaynaa dadaalada ay wadaan ee wanaagga ay rabaan dadkooda inay wax u qabtaan oo weliba dadaalkooda uu dadaalada kaga duwan yahay inuu yahay mid jeebkooda gacanta ay gelinayaan arrintaasina waa arrin saxa weeye waayo imanka adduunyada waad ogtihiin adduunyadii la odhan jiray charity wallka ama duniyadii sadaqada baxsan jirtay iyadaa bay noloshu ku adkaatay markaa sadaqadii inay soo bixiyaan waabay adag tahay hay-ado badan oo waxaan ka shaqayn jirin imanka waa musallafeenba wadamadii yurub ee deeqsiyiinta ahaa ee lacagta u badan ina siin jirayna dee wadamadoodii yurub qaar ka mid a baaba gaajooday oo dhaqaalihi ka khalkhalayoo shilinka hayaan halkaasay ku bixinayaan marka waynu ku khasbanahay inay somaliland jeebadaheeda gabcaha geliso iyadu isku tashato marka haldoor dadaalada hore ee saa ahaa iyo kuwan imanka ay wada ee saa labadaba runtii waan uga mahadnaqayaa waa wixii loo baahnaa somaliland cashar bay u noqonaysaa waa inay somaliland wax ka barata wey halka kale ee isku tiirsanaanta iyo wadajirka iyo gamcays qabsiga iyo marka laga yimaado booskayga siyaasiga hadda waa intaan u ololeeya intaan u ordo marka in gamcaha la isqabsado oo la iskaashado oo dadku ay isgaadhaan oo ka waxaya oo ka saboolkaa waxtaraa waa inta somaliland qurxinaysa ee wanaajinaysa runtiina haldoor dadaaladaas qaar badan oo kala qayb gala waan uga marakacay inay shaqadaa wanaagsan ee qiimaha leh inay hayaan inankaan abtigoo ahay hadallada qiimaha halkan ka yidhi maraykan ka yimina waa ku raacsanahay somaliland waxay noqotay waddan waxaa xirfadda la yidhaahdo iyo adduunyadu ku faanto ee adduunyadu ku horumartay laga khashaafo oo la isku dhacayo hadduu qofku idhaa kuulibaane waxaa loo haystaa qof hooseeya hadduu idhaa balambar baanahay waxaa loo haystaa qof hooseeya
hadduu yidhaahdo waxaan ahay cleaner ama qof dhulka masaxo si guryaha loo nadiifiyaan aqaana ama company guryaha maydhaan leeyahay hadduu yidhaahdo qof liita ama baa qofka raislaha dadka laysay Somaliland ku jira shaqooyinka layso ee dadku aanay amaan laakiin adduunyada kale researcherka qofka ah ee cilmi baaraha iyo qofka xirfad yahanka ah xirfadda leh labadaas oo wada socda ayaa aqoonta sida marka aqoontu deegaanay noqon Somaliland waxbarashadeeda marka laga hadlayo waxa laga hadlaa Greek iyo jaamacad laga soo baxay iyo waxaynu doonaynaa inaynu abuurno in dhalinyarada oo political science master ku haysta oo plumber oo hadduu political science ka ama administration ka ama lawyernimadu bartay uu shaqo ku waayo ku haweyno ku qabweyn oo inuu kuuli ahaado raali ku oo dabeetana isagoo xaragoonaya galabtii habeenkii lagu arko dawladda waaweyn dadku ay ogaadaan lacagta ku xaragoonayo gaarigu wata lacagta kiibsadayba inay tahay xirfadiisii oo ku shaqaystay oo ku shaqaystay adduunyada waa saas adduunyada dadka xirfadyahanada ee plumberska cleanerska carpentryga ka shaqeeya kuuliga wastaadka waa dadka ugu qiimaha badan wey mararka qaarkoodna meelaha wax kiibsadaan waxba ku kiibsan saacaduu shaqeeyo lacagtu qaato markaad eegto adduunyada qaarkood meelaha qofka xashka gura yaaba helaba isu salaani lama baxo Somaliland laakiin qofka xashka gura oo qofka ugu liita wey marka iskuulkani waa kii loo baahnaawe xaafadda u doorteena waa meeshii looga baahnaawe waayo maxamed moogo waxa ku badan dad IDPsa ama dadka barakaca gudaha dadka magaalooyinka gudahooda ku nool laakiin ayaa ku badan xaafadduna saasay ku aasaasantay marka dhalinyaro badan baa joogta marka dhalinyarada in xirfad la siiyo ay ku shaqo tagaan oo wixii loo baahnaa waa xaafad ku sultan qof dalkan usoo halgamay marka abaalkaasna Somaliland buu ku leeyahay magaca maadaama ay haysato in dadka reer Somaliland uu kacaan oo ka qayb qaataan xaruntaas sidii loo dhisi lahaa hal doorna wuxuu maan usoo jeedinaya insha Allah gacmaha fidiya cadaan iyo madooba saaxiib la noqdo oo dad badan hal door ku soo biiray si marka mashruuca Maxamed Moogal la isugu tagay inuu uga farxano kii Sheekh Nuur iyo kii Berbera iyo kii Burciye kii Ceelgaabiye kii Boorama ay noo sameeyay gacmaha fidiya dadkana wada gaar insha Allah ta'ala waxaan rajaynayaa dawladda hoose baashay uu naga maqnaaday hooyadii Ilaahay Allah shaafiyo wixii ku xidhmay adula xantana waan hayaa way la diyaar biyay reer Maxamed Moogal waxa looga fadhiyaa yani suuqu $500,000 oo dadka xubnaha hal soo uriyeen in lagu dhameesto qaaraankoodii iyo contributionkoodiina waa laga doonay iyaguna waa inay qayb ka geystaan waa caruurtooda meesha wax ku baranaysa mashaariicda dibadda uu laga soo baro lacagta ee dadka guduhu aanay qayb ka ahayn oo kuwa uu hordhintay way dadku lahaashkii ma dareemayaan marka 50,000 aba yaree 20,000 30,000 100,000 ee Maxamed Moogal lacagta $500,000 qaybta ugu badan ama qayb ka mid ah waa inay dadka reer Maxamed Moogal soo uriyaan nus saacaha iskuuladooda waa inay isku soo dardaraan hooyadu waa inay bilkeeda kunkiyo labada ka goyso saasayna xarunta markaa ku dhamaystirnaa insha Allah ta'ala wasaaradda waxbarashada waa inala joogtaa iyaduna insha Allah ta'ala wixii inta kaga qaybta iyaguna doorkooda way qaadanayaan xukuumadana anigii wasiirka u joogno xukuumadda mudnaanaheeday ka mid tahay in dugsiyadii farsamada gacanta in mudnaanta la siiyo oo la soo saaro qof xirfadiyahana oo waad ogtahay imakoo muraayadda yar albuniyamka dee waa nin Pakistani ama Iran Pakistani ama India ama maxaan ku dhahdaa mid laga keenay Bangladesh ayaa inoo xidhaya waa inuu samaysan karnaa oo waxayna nagu qabsan karno finishing ka yara marmarka Somaliland khaatibay ka taagan tahay marka in la abuuro inay soo noloshu noqoto cabdikarax mugo markuu sinimada iskaga tago waa inuu xirfadyahan yahay oo hadduu xitaa digrigiisa shaqo ku waayo uu xirfadiisa ku shaqatay karo ama painter ha noqdo rijiga guryaha ha mariyo ama siliga ha xidho ama marmarka ha dhigo adduunyada waxa ceeba inaad shaqaysan weydaa ceeba laakiin Somaliland waxay noqotay meel la isku caayo qofka shaqaysanaya waa ra'iisna wacay waa kuliyo wacay dhulku masaxa wacay kii shaxaadka ee nafta Ilaahay ku keenay caayimayso oo qurux badan yahay reerkiisu ku biishanay caani caruurtiisu ku weydiinaya waanu amaanayay waanu shafay shil walba waa loogu yeelaa kala hadal balaleey ninkan balanbarka ah ee wastaadka ah ee 6 subaxnimo qalbada walaaqa ee bariiska xalaasha alla soo baxa sharaf ba malaqa meesha lagu shirayno looguma yeero caawan inay la joogaan baabax caawan inay la joogaan oo 3-4 wastaad
dee farsamayaqaan weynuu maraykanka yimi inakaa tugay oo kaa joogay laakiin dee kuwii hargeysa xaggaa maraykanka gamca golofus buu xidhaa koofiyad buu xidhaa kaba waaweyn loogu talagalay buu xidhaa laakiin dee nimanka qaleylka ugu xeera ee had iyo habeen 6 subaxnimo waad aragtay xilligu baashan sabada la idhaa shubo dee qoladaana loo yeedho bay ahayd runtii laakiin waxba male inagaa matalayna somaliland waxaan hadalkaa ugu talax tegaya ilaa la helo summer time imaka waxa fadhiisto uun lawyer baan ahay business administration baan ka qalin jabiyey waa inuu jiraa inan yaroo wastaa oo siduu kaasuu qurux badan u qurux badan oo aroortii shaqo tagay isagoo haweyn oo galabtiina soo rooxay isagoo haweyn oo dabata markuu labisto summer time tago yidhaahda adeer anna waan soo shaqaysa digrigaad haysatana waan haystaa dee sidoo kalena ku darso digrigii shaqo waa lagu waayo wastaad baan ku shaqaystaa lacagtana halka wax kaga cunayana wastaadnima kusoo saarto halkaa in la gaadhay doori inta ay tahay xirfadda somaliland ma horumarayso waddan horumaro bilaa xirfad horumarayna ma jiro waddan xirfadda dadka xirfadyahanada tubalaa soo dhoofsado balambarkiiyo kuuligiiyo wastaadkiiyo shaqaadu buu yahay ajnabi oo dabatana joogtoobo dhaqaalihiisu ku macana ma jiro marka dhammaanteen ninkeena inaga mid ee waqti helowba markay ugu yartay geena iska yaragal markuu gaariga jingisu kaa raxmaysaad weel hagaajisan karto wasalaamu calaykum imankana waxaan bal u yeedhayaa si uu isla halka kelmada nooga idhaahdo qoraaga weyn cilmi baaraha weyn saxufiga weyn ee aan horeba magaciisa u xusay maxamuud sheekh axmed dalma السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. runtii أو حوالي تبرسل سكيس ريو صاحب أحمد يوسف بالعدالة والسؤال. أيوة مرة كسب بيتنا سمان لهين munaasabadana kaba ka qeybgalaysa laakiin dee khayr aan afka uga soo galay ayaan ka soo qaadayaa runtiina waxyaabaha la isugu yimaado waxyaabaha ugu qiimaha badan waxaa ka mid sidaynu u qabanaa sidaynu waxtar wax leh ugu soo kordhina mujtamaca yani rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam yani waxa uu noo sheegay dadka ugu khayr badan inay yihiin kuwa ugu nafciga iyo waxtarka badan waxtarka ay dadka kale waxtarka marka mashruucana runtii imika waa fikrad isaga oo dhaqan galayna waynu arki doona insha allahu tacaala mashruucaanu dhaqan galay mashruuca midhihiisii oo dadkii ka soo baxay ama yani ku bartay oo mujtamacii ku jiro oo yani waxqabadkoodii la arkayo ilaahay waxuu kuma arko insha allahu tacala wan arki doona marka hadaladii qiimaha badnaa ee halka laga jeediyey wax badan ku kordhin maayo laba mid uu baan isleeyahay halka ka temi mid waxa weeye mashruuca dhisidiisa iyo taabagelintiisa inan waxba lagala mid qurbo jooga iyo mid qarka jooga iyo mid maxaan ku dhahday magaalada jooga mid meel jooga ta kalena waxa weeye runtii dee way sahlan tahay in wax la dhiso laakiin waxaa marka la dhiso halkaa ku-hayntiisa iyo inaanu baabi'in iyo waxtarkiisu inaanu gurin hawsha gelaysaana iyana waa muhiim fundraisingka iyo hoola ururinta lagu dhisaya yani waa marxalad mashruucii markuu inoo dhismo insha allahu tacaala sida uu usii soconayo continuity ama socod iyana hawl dee jirta in yani il gooniya lagu eego nagu baahan marka de haddii maanta pioneer ama horseed yani haldoor uu ka noqday abaabulka iyo dhisidda iyo hirgelinta iskuul farsamo in taageerayaasha haldoor iyana horseed ay ka noqdaan
afkaar cusub oo wax lagu hirgelinayo waxaa hirgalina lagu sii socodsiinayo. culimadeennii baa yani nala fadhida. sheekheennii sheekhaygii sheekh cumar xuseen ayaa halka iga muuqda. dhaqankii ama odayaashii dhaqanka oo garaadku uu ereygooda halka geeyey iyo dhammaanteenba waxyaabaha imika caalamul islaami laga tegay ee u baahan in lasoo nooleeyo ee wax waliba ay ku hirgeli jireen deeq ka timaada shisheeye ama European ama American ilaahay subxaanahu watacaala ma una arsaaqda Canada iyo baan dhigayaan North America iyo Europe la tacaala la can dalika cunwa kabiira halka ma wadaada laakiin la soo bixeeda iyo maamulkeeda ayuun baa laisku dhaafay. haddaynu moodayno inayna waxba haysan wax badan oo aan Europe iyo America iyo Australia midna lagu hagan haynaa xoolana baynu haynaa waxaynu haynaa bad arsaaqooda fara badan ayaynu haynaa. halka waxaan uga jeedaa nidaam la nidaam awqaaf waqafka awqaafta bal waxaan u naqaanaa wasiir la magacaabado wasiirka awqaafta iyo diinta laakiin awqaafta waqaf waxa la yiraahdaa مثل هذا اللي كسر قضاء يشاف ونو فاهم دونا بالغية أنا هل إن الله نقضوا التفاسير يعني أوقفت وحينقون يجيسين تبع وحكم إذا مثلا إن وأقوم علينا يعني كدينك كيلو فربنا من ولا عندك سمع كل لو ولا كل كائن كملا ومستوى عليه حتى لو كاسوا وقف أنت صوت تدود وجيله وهذا ولا بتقول يعني كل يوم جيل وقف نقضوا هالك لقوم بقرنا يسافر لوك هسير وقف كلا قديم ده بيتني ده كلام اللي يجين أنا هالسوق قاعدين معلوم بكمان كم دولار سوا سعر وقف كي سكول كا أما يعني معهد كا فرسمة ذاك عنت لقو تابجيلين يجي مركب أون اسمنا يعني continuity أما سوسين إنه نقول عن قوة بين أو قارن أما دين ها إن لقى فكرة نظام كأوقافنا مركها أين نقولنا pioneer هل دور أون نقوله فرصات كي سونو لي نظام كي وقف يدل كل سويت وقف مركها عن لا هاي حضارة العالم الإسلامي يورو بيننا وفرتي إذا اخترنا ودبرتي فيزيكس كبرتي ماثماتكس كحسابات كبرتي علم الفلك iyo fadaha sare saamiintiisa bartay ee wuxuu bartay wadila yaabay samarooni hadaan la ninkii 3D suit ugu horeeyay Yurub xidha Ingiriisna ma ahayn Faransiisna ma ahayn nin muslimna waa hawrada duruus 3D suit markay xidhanayeen uma la taagi ka baxay boqorada Yurub hargay xidhay dadkii sidaa uu ku baray jaamacadaha ka soo baxeen isbitaalada ay ku daweynayeen waxa soo dhamay dawladuhu inta badan ma maamuli jirin waqaf bay ku socon jireen loo xabiso meel loo dhigo tii waa dheertahay sida lagu gaadhaa وما ذلك على الله بعزيز لكن مثل كأم شيء أو كان هدي لقى بلعبه ووقف سارع مال حول الداغان يتمدقيل وكا داقول دوغيل وقف كاها او حكا سو بخا لو تاغيريي يعني معهد كفرسمada gacanta wuxuu in badan in dafur abay noqon doontaa waana la isku daydaa laga yaabaa in waxyaabo badan oo ka sii weyn lagu gaaro hal door guuleysta ilaahay subxaanahu wa tacaala mashruuca bagala ka dhigo ilaahay isagoo macadkaas farsamada gacantu dhismay ilaahayna tuso iyada oo dadkii ka soo baxay ay taaba galeen meel walba ama najaarada noqoto ama qasabada noqoto ama dhismaha noqoto ama magacii la doonaa lagu sheegay meel walba ay ka howlgelayaan oo loo aayo leeyahay waa ragii ay hablii halka ka soo baxay ilaahay tuso. Wassalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.
khudbaduun baa isku xigay imakana waxaynu yara baahannahay madadaale iyadoo aynu gabagabadiiba aynu ku jirno asbad markaa waxaan u yeedhayaa abwaan cabdi gaas oo tixgabaya halkan inooga tirin doono. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المستمعون الكرام ولا يلوى مع التدين شركنا كسوق كشين هي ما تهدي بين كده اللي حفلة وناكسن مجا أو بحسين وهدي بين كده اللي هي ووح وناكسن وح الله قبصدانا وح أدوم كده كدعويان waxaanan aada iyo aada calooshayda markaa yar firkiray waxaana nimankani macnaha xaggii ka soo saareen waa runtii kaboolaa waa la caayaa ra-iislaa waa la caayaa tumaalka waa la caayaa kaxashiishka buro waa la caayaa waxaasi ceeb bay nagu ahaayeen warshadan cusub ay bakeyroo furteen haddii ay hirgasho waxa weeyaan mid aada iyo aada iyo banaafiic noogu yeelanaysa laakiin halba laga yaabaa inaynu ka qajilloon waxaa ka shaqayn weyno oo weynu waxaynu nahay dad aada iyo aada iyo aada maanta haddii bayda keli leeyahay uu kibir badan ummadaha ilahay waxaasoo dhan ka shaqeeyaan waxaan arkay oo aan aada iyo aada ula yaabay waxaad jooga waddanka maraykanka waa tegey anagu bariiska kaanu maanta karsanay 7 buu noogu jiraa talaagada waxaan soo arkay reerkayga oo bariiska caawa la kariyo maanta kii la kariyo carruurtooda aanay cunayn oo leema wixii maanta la kariyo aanu cunayna hadda waa soo kibir dad fukiir oo haddana kibir marka haddaynu qorshaha imaka gashay waa qorsho wanaagsan in saacada gacanta la barto oo la shaqaysto oo xoggimaal la ludo wax lala soo baxo wax aada iyo aada u wanaagsan weeyaan waananu taageeraynaa ilaahayna ha idinku garab galo waxyaabo badan oo maanta haddii baydakada leeyahay dibadaha haddee laga qabto ayaa jira oo aan idaanadu kuma arkin dhib badan aanay arkin in badan oo qurbajoogina way jiraan waxyaabo badan bay soo maray imaka anigu aanan wada gaadhahayn markii aan dhulka tegey wixii isbedeleen arkay ayaa waxyaan idinka taabanayaa waktigan aynu ku dheereen maayo waa Soomaaliland gabayadeydu waan tiriyey heesaydu waan tiriyey waan ammaanay waana layga duubay welina idaacadda lagama soo dayn wixiina meesha joogo waxaan doonayaa maalin walba waxbaa layga duubaa waa la wareeriyaa wax layguma siiyo tiifida qaranka lagama soo daayo idaacadda lagama soo daayo wax yaroo burjuubaja iyo habad buraaburtana waa laga soo daaya waxaan aada iyo aada uga murugaysanahay aada iyo aada waxaan uga murugaysanahay bal waan idin taabsiina marka intiinaa in yar baan idinka taabsiinaya waxa anigu maanta laygu goodbinayo ee habad buraaburta iyo wax yaroo afamada maxjaajilaa sii daynaya idaacadda looga sii daynaya kaygana loo sii dayn waayo waa la qabyaaladii waa oga waxaan leeyahay rag iyo dumar waa inaydin dabagal ku samaysaan oo waxaydii xoolo layma siixinina ima hadhin waa layga duubawno waa layga duubawno meel la mariya garan maayo taana waa inaad dabagal ku samaysaan waxaan ka tiriyey Soomaaliland nin ka tiriya ma jiro waa la ii taabanaya waxna aan degdegina wallaahi waxaan aada iyo aada ugu kalsoonaya aada si wanaagsan iga dhegaysataan waan gabayay waan heesay gabayga baahi lacagada waan idin dambaysiinaya markaan marayka tegey ayaa gabayga baahi lacaga tiriyey waxaan u tiriyey kambani baan u shaqaynayey maalinta hore waxaa laga xidhay shabagila halkaa jooga silsalo baa xadiido halka jooga silsadii dadka waa lagu xilsano dhexda laygu maray wayse halka lagu xidhay oo 10 muddood ku jiraan iyo 4 soon wixii ma la dhaqaaqi kari waayo intii turjumaanka baan najmaan adeerkaana ilaahay baan irsaaqad weydiisanay talaabana la dhaqaaqi karin iga fur gaaladooda baa ku soo tuusaasay eegano korbeeyano hoos beeyano markaasay yidhahdeen halkaa qolkaa galoo suwaal cad iyo baa lee geliyo kii dhakhaatiirta iyo shaar cad iyo kaba balaastig iyo koofiyad balaastig shaar balaastig iyo koofiyad kaba balaastig oo bacaha iyo guryaha kuxidhanoo kale ah ayaa lee geliyo qolalka soo kiligaraya baa layidhi haddana ma laga miishaan afriyadooda garanaya ilaahay midadiiga furto mahada duun baale markaasaan kacay bilaash laguma helo xoolahaan beelka loo xidhani nin buraashadoogii hawl yaraa buul ma jiibsadoy
waxaantay sabeerka ugu dhigay baahi lacageedii waxaan barafka cagaha uga galay baahi lacageedii waxaana dhiigga uga baydhahay baahi lacageedii waxaan hilibka ugu beegsadaa baahi lacageedii waxaan baaldi jiirka ugu guray baahi lacageedii waxaan baaska meesha u marsaday baahi lacageedii waxaan beenta ugu soo jid maray baahi lacageedii qolaana idin sheegay bakusoo waxaan beenta ugu soo jid maray baahi lacageedii afrikaba waxaan uga dhex baxay baahi lacageedii waxaa badaha loo jiirayaa baahi lacageedii waxaa adhiga loo bacsadaa baahi lacageedii waxaa geela loo goobayaa baahi lacageedii war buura hadday saarantiiyo badaha hoostooda barti lagu tilmaamaba rijaal baafiyaanahayo reerihii inaan biiliyabaa beerka ku hayayo bayd waxaan inaan suubiyabaa beerka ku hayayo baabuur inaan ibsadabaa beerka ku hayaye allahaygu beene waqtigu isbedel runtii maaragtay madadaalo fiican buu inoo sameeyey waxaan filayaa qolyaha saaxiibada meediyaha tviyada iyana inay wax ka qaadan doonaan ayaan rajeynaya insha allah gabiyadiisa xafladdii waa inoo gabogabo haldoor magaca haldoor markaan arkay waxaan maaragtay aan leeyahay dhalinyarada la baxday haldoor iyo caawa xafladeenna markaastaa u egay xaflad aan siyaasani ku jirin oo ka madax bannaan oo dad kooban oo nadiifii joogaan oo aan ku arkay dad aada u qaaliyo fara badan doctor xuseen iyo cali sanyare labadaa ninee aada ogtihiin qiimaha ay u leeyihiin bulshada iyo waxay usoo qabteen iyagana si gaaraan maaragtay ayaan ugu mahadnaqaynaa shahaadooyin baa jira halkan ee haldoor ugu talagaleen inay siiyaan xubno gaar ah oo muhiima marka imanka waxaa la joogaa waqtigii aynu shahaadooyinka bixin lahayn marka agaasimaha ayaan u yeedhay adeer cusmaan inuu shahaadooyinka inoo gudayso bismillahi raxmaan raxiim aad baan idinka mahadnaqaynaa muddada dheer ee aada u samirteen ee halkan fadhideen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa ururka haldoor sanad walba wuxuu sameeyaa qiimayn oo wuxuu soo saaraa wax la personal operation ama qofka ugu waxqabadka badan leh saddexda qof ee ugu waxqabadka badan leh xagga arrimaha bulshada xagga caafimaadka xagga waxbarashada iyo xagga horumarinta aynu sanad walba soo saarnaa sanad walba waanu guddoonsiinaa sanadkan xubinta ugu horeysa ee u yeelatay xaqa inaanu shahaadadan aanu guddoonsiino waxa weeye cali ibraahim maxamed cali sanyare soo dhawaado stageka cali sanyare wuxuu dhabarka u ritay mashruuca wadada cad cali sanyare wuxuu ka mid ahaa wuxuu ahaa wasiirkii wasaaradda qorsheynta qaranka ee dhidibada u taagay qorshaha NDP-ga ama National Development Plan-ka cali sanyare waxa uu ka mid ahaa uu hore u ahaa gudoomiyaha United Nations-ka ee geeska Afrika wadamo badan xagga waxqabadkiisa oo aad runtii aad iyo aad u fara badan daraadeed waxaan ku siinaynaa shahaado sharaf wasiirka jeclahay inuu noo soo kaco wasiirka wasaaradda waxbarashada si uu u guddoonsiiyo shahaadada cali sanyare بسم الله الرحمن الرحيم وعليكم السلام يا كلكي waxay ila tahay aanaad iyo aada ugu mahadnaqaya ururka haldoor oo shahaadadan maanta ay guddoonsiisay marka aada ku jirtid yacni xaydaabka horumarinta meelo badan baa kulbo shahaado lagaa siinayayo marmarka qaar meel aada degtiba waad waayeysa dembi aada degtiba waad waayeysa se waa mid aan aada iyo aada ugu mahadnaqayo ururka haldoor waxay la tahay imanka waa 4 jir 4 sanood bay shaqaynayeen
si weyna meelo badan oo weliba gaar ahaan dhismaha wadada cad aada iyo aada baanu uga wada shaqaynay. waa dhalinyaro firfircoon oo rag iyo dumarba leh oo runtii u soo jeeda inay wax weyn ka qabtaan deegaankay degan yihiin iyo guud ahaanba Somaliland. se waxaan had iyo goolaale ku farxaa anagu markaan imaado madashan oo kale oo sidii hore loogu sheegay lagaga hadlayo horumarin iyo mashaariic la dhisaya. hadalka iyo towtowda Somaliland sidii uu sheegay wasiir ku-xigeenka qorsheynta aad bay ugu badan tahay, laakiin dad yar oo fara kutiraysa ayaa si baleero ah uga soo baxa inay bal wax ku daraan waxyaalahan badane ah in dalku iyo dhinacyadan badane ah dalku inuu iska bedelo. markaa aad baan ugu hambalyeynayaa ururka haldoor dugsiga farsamada ee ay maxamuud haylo ka dhisayaan maxamed mooge. waxay la tahay wixii beriyo badan baa ka soo shaqeeyey arrimo ku saabsan shaqada iyo shaqaalaha iyo farsamooyinka iyo xirfadaha sida loo sameeyo. wixii talo ah ay iga baahdaana diyaar baan ula. laakiin waxaan u sheegay waxyaalaha waaweyne inaga dhiman Somaliland horena halka waa looga sheegay. waxa weeye inaynaan siinin ahmiyad farsamooyin iyo sidii loo tababari lahaa dadka dhalinyarada. waxaan idin siinaya tusaale keliya. meesha hal injineer aada uga baahan tahay horumarinta waxaad u baahan tahay ugu yaraan 20 ilaa 30 farsamo yaqaan oo kaabaya waxa uu injineerku sameynay. waddanada Afrika waddankii ugu horeeyey gaastay saas wuxuu ahaa waddanka Algeria la yidhaaho oo markii ay xorriyadda ka qaateen waddanka Faransiiska noqday waddanka xawliga horumarinta ugu weyn sameeyey. waxaanay ku sameeyeen iyagoo aqoonsaday in xirfadluhu ka muhiimsan yahay injineerka. waa loo baahanya injineerka balada in yadan u fiirsada. haddaad doonaysid inaad aqal dhisatid injineer baad u baahanta. laakiin hal injineer baad u baahan tahay oo naqshadaha iyo waxaa kuu sameeyo oo ku siiyo ku idhaahdo aqalka doonaysa waa sidaase hala dhiso. bal ilo taliya inta farsamo yaqaani looga baahanya aqal dhiska. kow ustaad baa loo baahanya. 2 nishaar baa loo baahanya. 3 tuubiisi ama balamad baa loo baahanya. 4 waxaa loo baahayay kuwa biraha laablaaba ee lailaa biraha ay laablaaba. waynusan maray maafarbaa 5 waxaa loo baahanya dhagax qore. waxaa loo baahanya dhaktiyaasha baliisariya idu way iga lumeen waa 7 maraya. waxaa loo baahanya rinjiini. waxaa loo baahanya marka casri bay noqdeen daaqadihii qolada daaqadaha sameeya ee isku xidhe isku geeye si farsamaha u sameeya. waxaad u baahanta qadabo leh haddaynu siino 12 xirfad leh ilaa 15 baad u baahan halkaad halka injineer uga baahan. markaa waxaa la yidhaahdaa cilmiya 20 ilaa 30 baad u baahan. Somaliland waa dalkeeda. waxaa maalin dhaweyd
Soomaali TV ka arkay wasiirka waxbarashada oo tagay Burco oo booqday institutkii Burco oo ku ballan qaaday in dib loo ficilay dadka wax xaq aynu xirfadda aynu aada uga dhiidanay oo aanay dhicin 25 sannadood in la kiciyo aad iyo aad baan ugu farxay markii aan maqlay ballanqaadkaa uu sameeyey duniduna waxa la ilaa shaqo waa sharaf waxaan sharaf lahayn imaan shaqayn